jaamacaddu intay jirtay waa dufcaddii koytoonaad waan ka hadalnay waxay samaysay horumar bay samaysay dhinacyo badan ah horumarka ay samaysay waxaa kow ka ah jaamacaddu waxay samaysay cilaaqaad bay samaysay ururo badan oo caalamka bay ka tirsan tahay sida ururka jaamacadaha carabta ururka jaamacadaha dawliga sida jaamacadaha Afrika ee Islaamka jaamacaddu waxay leedahay shuruuc sharci bay leedahay qaanuun hadda fiirsan qodobka 28 faqradiisa koowaad 2 3 4 dhammaan waxay leeyihiin shuruud adag jaamacadda Rasi waxay ku caan baxday runtii galiinka jaamacaddana way adagtahay si fudud lagu ma galo ka bixiduna ma fududa qodobadan aad waxay u adkeynayaan inaysan marna suuragal ahayn ayuu shuruudahan aysan ka soo bixin in ardayga la siiyo wax shahaado ah toddoba faculty weeyaan inta hadda qalin jebinaysa waa 13 department wiilashu gabdhuhu almost way isku dhow yihiin runtii maadaama ku hadlay magaca guddiga boorka waxaan cadeynayaa qodobadan aan kor ku soo sheegnay iyo ardadan baahida iyo requirementiga looga baahnaa inay buuxiyeen xaqna ay u leeyihiin in la siiyo shahaado in badan oo kamidihii jaamacadda ay dhigan jireen minxay ku dhigan jireen ama 100% ha ahaato ama 30% ha ahaato ama 50% ha ahaato waa ihsaan ay jaamacaddu u samaysay weey maanta markay heerkaas soo gaadheen jaamacaddu wax lacag kama rabto laakiin waxay ka rabtaa sidii ihsaanka loogu sameeyay in ihsaanka iyaguna dadka ugu sameeyaan ka dambeeyay